dowladda Kenya iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa warmurtiye 10 qodob ka kooban oo ay wadajir u soo saareen ku heshiiyay qodobo ay ka mid yihiin in Kenya ay qunsuliyad ka furato Hargeysa wixii loo gaaro dhamaadka bisha Maarso ee sanadka soo socda iyo in saraakiisha sare ee Somaliland ay Kenya ugu dhoofi karaan dokumentiga safarka ee Somaliland iyagoo fiisaha Kenyana ee laga siinayo airportka wixii ka dambeeya isla bisha Maarso Faarax Lamaane ayaa soo aqriyay oo noo faahfaahinaya qodobada kale ee labada dhinac ay ku xuseen warmurtiyeedka waxa kamid ah in labada dhinac diiradda ay saarayaan ballaarinta ganacsiga laba geesoodka ah waxaana kamid ah duulimaadyo toos ah oo isku xiriiraya Nairobi iyo Hargeysa iyo iskaashi dhexmara dekedaha Mombasa iyo Berbera qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen in la dhaqan geliyo waxa kale oo kamid ah in diyaaradda Kenya Airways ay bilowdo duulimaadyo toos ah oo ay ku tagayso Hargeysa wixii loo gaaro dhamaadka bisha Maarso iyo in saraakiil sare oo labada dhinac ka kala socda ay isla meel dhigaan jadwalka qorshaha sare u qaadida iskaashiga farsamo oo ay kamid yihiin isdhaafsiga barnaamijyada ay ku lug leeyihiin ardayda saraakiisha beeraha dhaqaatiirta kalkaaliyayaasha iyo xirfadlayaasha kale waxa hoosta ay ka xariiqeen in al-shabaab ay khatar ku tahay gobolka waxaana ay ku baaqeen in beesha caalamku ay si adag ugu lug yeelato oo taageerto dadaalada bay yiraahdeen lagula dirirayo argagixisada geeska Afrika waa sida hadalka loo dhigay aad buu mahadsan yahay Faarax Lamaane haddaba heshiiskan ay labada dhinac gaareen ayaan wax ka weydiinay Cabdiraxmaan Cadami oo ka faalooda arrimaha Somaliland Axmed Mursal ayuuna qadka telefoonka ugu waramay macna aqoonsigu ekaan kara oo dowladda Kenya oo kamida urur goboleedka EU-da UN-ta waliba sanadkan iyo sanadka soo socda xubin kamida golaha amniga ee jilada qormaha ka dhaxaysa hadii xiriidha caynkaas ay la saysay Somaliland yani wax badan bay u tahay siyaasiyan Somaliland waa tahay si qodobadan loogu heshiiyay ay u hirgalaan maxaa loo baahan yahay bay kula tahay runtii qodobadu way badan yihiin marna waxa laga yaabaa aragtidayda inaanay marna wada fuli karin laakiin waxa loo baahan yahay go'aanka iyo muxuu ahaayay wehelanaanta labada dawladood siday kolba maartay arinta u galaan ayay ku xiran tahay hirgelinta qodobadani waa tahay qodobadan ma ku jiraan qodobo Soomaaliya la'aanteed aan fuli karin oo heshiiskan ku jiray waxaan filayaa sidan ka arkay warmurtiyeedkan ka soo baxay meesha dawladda Kenya oo dawladda aqoonsan yahay qodobo aanay uga maarmi karin Soomaaliya meeshaba Soomaaliya dhigteen marka horeba marka waxaan filayaa qodobadan ay ku heshiiyeen Kenya inaanay uga baahanayn Soomaaliya muxuu ahaayay wax uga soo fasax qaadanay ma kula tahay ama ma dhici kartaa in heshiiskan uu yahay mid aan meel sii jirin oo Kenya ay markaas uga faa'iideysanayso xiisadda Soomaaliya kala dhaxaysa wallahi dad badan baa sida aaminsan sida warbaahinta iyo muxuu ahaay social media ayaynu ka arkayno laakiin aniga waxay ila tahay waxaan u maleynayaa runtii inay arintani ka go'antay labada dawladoodba inay qodobadan inta badan kulliba ay fuliyaan kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cadami oo u waramayay Axmed Mursal Xuseen